السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داوديال halkani waa Shugdhowr Media. Daawadyaal waxaa kusoo dhawaata barnaamij gaar ah oo ku eegayno waa kuma madaxweynaha Soomaaliland dhawaanta loo doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo taariikh nololeedkiisa oo faahfaahsan. Waxaa kaloo idin xusuusinayaa daawadayaasha aan ka codsanayaa in barnaamijka like-ta iyo share-ta ay ku qabtaan wax weyn maaha xaggiina anana waxna taraya oo dhiirigelinaya oo maasantiin kusoo dhawaada. anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cigaal waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 29 bishii Afraad 1955 waxaan ku dhashay guriga hospitalka Hargeysa waxaan ka dhashay qoys ka kooban 7 hablood iyo 3 wiil waxaan ahay sayga Barwo Farduus Maxamed Rooble waxaan nagu arsaaqay 5 caruur ah oo wiil leh waxaa laygu sheegay inta badan aan ahay hogaamiye dadkiisana u dagaasan shisheeyahana ku adag waxaan waxbarashadii ku qaatay ilaa dugsiga sare Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolladeeda maadaama ahay askari ka tirsan sarkaal ka tirsan ciidankii booliiska ee waqtigii Ingiriiska la qoray intii dambana ilaa 80 uu shaqaynay hooyadii Allah u naxariisto Aamina Jaamac Cashuur waxay hooyo karti badan hase yeeshee anigoo fasalka koowaad ama fasalka koowaad dugsiga hoose ayay dhimatay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo weli xasuustayda kama bixin waxaan dugsiga hoose ka bilaabay magaalada Berbera waxaan ku dhamaystay 4 sano ee dugsiga hoose dugsiga dhexe waxaan ka bilaabay magaalada Hargeysa dugsiga caanka ah ee Axmed Gurey oo ku qaatay fasalkii 5aad iyo kii 6aad dabeedna waxaan u bedeshay Burco oo xilligaa aabbahay loo bedelay waxaana ku dhigtay fasalka 7aad magaalada Burco fasalka 8aad waxaan ku qaatay magaalada Sheekh dugsigii sare 4 sano waxaan ku qaatay isla magaalada Sheekh dugsiga sare waxaan dhameeyay 1977 maalin caana baan u fadhiisanay imtixaanka oo ay 7 bishii 7aad 1977 waxaan galay dugsiga Xalane oo lagu tababari jiray ardayda dugsiga sare dhamayso dabeedna waxaan ku shaqeeyay sanad macallinnimo waxaan macallin ka ahaa dugsiga dhexe ee boardingka Dadweyne 1 sano ardaydii beriga aan macallinka ahaa dad badan baa rag waayeel hadda maanta oo qaar ganacsada qaar madax dhaqameed qaar ku maqan dalka dibadda inta uu joogaa kadib waxaan tagay Muqdisho oo markaa dhammaan ardayda ka soo baxay dugsiga sare isugu tegi jireen sababtuna waxay ahayd jaamacadda qura ku taalla Soomaaliya xilligaa waxay ku taallay Muqdisho siidkii halkii dawladdu joogtayna way ahayd dhammaan shaqooyinkana waxaa loo doonan jiray Muqdisho xilligaa waxaan galay shaqo hay'adii ugu horreeyay ka shaqeeyay waxay ahayd hay'adda loo jiray hay'adda wadaagaha ama Ingiriisiga Settlement Development Agency oo hay'adii loogu talagalay inay dejiso dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen abaartii dabadheer ee Soomaaliya ka dhacday guud ahaanba waqooyi iyo koonfurba markaa dad badan oo xoolo dhaqato ah meel kale isugu geeyay dugsiga sare markaan ka baxay shaqaan bilaabay inta shaqada ku jiray haddana waxbarasho bilaabay waxaan bilaabay
maxadkii lagu dhigan jiray maamulka iyo maareynta SIDM Somali Development Administration and Management waan ku qaatay 2 sanadood oo post secondary ah kadib waxaan sameeyay shahaadada koowaad ee bachelorka loo yaqaano waan ku sameeyay accounting waxaana course ka bixiyay maxadka SIDM iyo California State University waxaana ahayd qoladii ugu horeysay ee sameeyay shahaadadaas sameeyay Muqdisho kadibna waxaan galay MBA oo ay waday jaamacad ku taala New York State University Melbourne COVID-19 dhammaadkiisii waxaa ku wareegay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya halkaasaan joogay ilaa 88 waxaan la bedelay magaalada Moscow 1988 waan ka noqday qofka labaad ee safaaradda ama deputy head of mission halka waxaan joogay 88 ilaa 96 intaan masku joogay waxaan dibloma sare ku sameeyay macadka African Studies Institute ku yaala magaalada Moscow kadib shahaadooyin kala duwan baan ku sameeyay jaamacadda Helsinki tii aan joogay dalka Finland la yidhaahdana waxaan ka mid ahaa madaxdii jaariyadda Somaliland aasaastay dalka Finland 99kii wixii ka dambeeyay waxaan soo guuray dalka Jamhuuriyadda Somaliland waan markii hore shaqooyin gaar ah ka bilaabay markaan imid Somaliland safarkaygu ugu horreeyay waxaan waday saraakiil ka tirsan xisbigii dalka xukuumayay markaa Finland oonu halkan fact finding mission ama xaqiiq raadin ay u yimaadeen Somaliland waxaa ka dhashay inay kaalmooyin kooban ay noo fidiyaan dalka Finland oo ka mid yahay dugsiga Candlelight ee magaalada Burco iyo institute Hargeysa waxaa kaloo qolooyinkaasi runtii kaalmo weyn ka geystay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ama naafada ah intaa kadib waxaan Hargeysa ka bilaabay ganacsi kala duwan oo aan ganacsiga ku jiray ilaa xilligii aan baarlamaanka geliyay baarlamaanka markaa doorashadiisii markii la geliyay 2005 waxaan isu sharaxay mudane ka tirsan golaha wakiilada oo ahaa golihii ugu horreeyay ee la doorto waxaan iska sharaxay gobolka saaxil magaalada Berbera waxaan ahaa mudanihii ugu codka badnaa gobolka saddexdii xisbi ee markaa tirtirmayay waxay kala ahaayeen Udub iyo Kulmiye أنا واحد كتير سنة وحلي جاس كلام بيتها ضفي أساسي حسبي واحد صدق حسبي بدنا أغلبية مبينين مركا حسبي واحد وكبر يشتي إنه عد سبعيس الله سمعته يسوونه النوضة قدوميها نوع العدالية وده لو يتم سنة طبعا جميل قلها وأنا قدوميها قلها وكيل لها جمهورية سودانية xiriirna badan oo caalami ah aan sameeyay xilligaas oo ka mid yahay inaanu goobshowe ka noqono barwaaqo sooranka dalalka loo yaqaano baarlamaanada Afrika iyo xiriir badan oo dalalka dunida ah oo Afrikaan iyo Yurubiin intaba ah 2011 waxaan aasaasnay xisbiga wadani rag badan oo siyaasiyiin ينخاطير يعد والبلد سوجرين الله نحرسته عدلاس إدارة كملها إن على الجوهر ما كملها أختركي الله نحرسته اسمه كملها هذا المروقة في تذكره واوي ورئيس مالي لأنه كملها أحمد حسين في الفلاش ما كملها تذكره أساسي
xasan xuseen baa ka mid ahaa iyo dad kale oo aan halkan ka wada sheegin buu jireen saa ka warhaysaan somaliland haldoorkii somalilandna waxaad moodaa maanta inuu halkan isugu imanayo insha allahu maantana waxaanu taagannahay markii labaad anigu u taaganahay inaan noqdo musharax madaxweyne jamhuuriyadda somaliland rajo weyn baan marka qabnaa in shacbigu taageeri doonaan isbedel doonka oo aan anigu hogaaminayo haddii alla yidhaahdo xisbi da'yar buu ahaa laakiin waxaa sila taariikh weyn buu sameeyey isagoo dhowr sano jiray wuxuu helay aqlabiyad weyn oo ka badan 40% muwaadiniinta reer somaliland xisbiguu koray inuu koray waxa markhaati ka ah doorashadii ugu dambeysay ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo xisbigu xaqiijiyey inuu yahay xisbiga ugu ballaaran wuxuu noqday xisbigii ugu ballaarnaa golayaasha deegaanka hase yeeshee waxaan isbahaysanaynay xilligaas xisbiga wacid aanu iska bahaysanay golaha wakiilada iyo golayaasha deegaankaba marka xisbiga wadani marka la eego 50% ayuu ku guuleystay inuu noqdo meeyarada gobolada jamhuuriyadda somaliland iyadoo inta kalena aan nala ahaa xisbiga wacid oo meeyarkii ka noqday magaalada Burco ee gobolka Togdheer